waxaan runtii aad iyo aad si farxad weyn ku dhaahanta ugu tahniyadeynayaa macallinkeena dhammaanteen Sheekh Xuseen oo runtii dhammaanteen macallimiin inoo wada ah macallin inoo wada waayo waxa laga yaabaa inaad u qaadataan inta da'da yar inuu macallin u yahay laakiin macallinku aniga iyo marka ragayga la midana macallin ku noo ahaa mararka qaarkood markaan kaftamayna wuxuu oran jiray adaa macalliniya oo xagga naxwaha marka la eego xagga quraanka iyo tajwiidkana isaga macalliniya ahaa labada markaan tartarsiinana waxa bari jiray quraanka waayo naxwu lama soo fadhiisan karo quraanka meel lama soo fadhiisan karo quraanka wax walba ka awleysan luqada carabiga iyo naxwuhuna waa aaladii quraanka ugu tahniyadeynayaa kadalika علماء يا عقاش يا سلاطين يا مرتشافة يا دنيا مارسا روتي عطني يا توقر الضوان حفلة مارسا صافي عن وصاحي كاي يقوى صاع سيبا هذه أبواب محاضرين روتي وحفلة فرحة وين له ما دام القرآن كي أهل القرآن يعني هو رميله أو لسود وين أيوه سيد مالتي وين مشايخ الوقت وين لسود وين إيه كان حفلة الماركة يقول سودويني معها بيت شخصيا شيخ حسين ماركة خصيصة شيخ حسين عام وبالقرآن كوحبارسية هيك ترجميس واحد وسيدو أو ضد كبرايو مركا ووح الغفر خاء ووح يعني واحد ويا واجب لين هو يعني لما أنت كنت دارلو وهندي في الجليل النوع مرة كارفود أقول توي بلان هاي علمي لبرتو مادي ديني وتربلي هي وحوي وفي عنها إني ضد وعقولي نوي مادان ودنيتها يرجليان لكن اسكتر جماعة نيك مادي وصوت تخصصي مع تهير كجاري يسدا شيخ حسين قفكي قرآن كريو كلام الله يوحي الله إلى قراءات كيسية تفيد كيسة هير كجاري وهذا دين الإسلام يعني ما تصح خصيصة وبيت صراع اسكتر الجماعة أنزلوا الناس منازلهم تطوي قفوا بهالكيسة اللي تجي قف والدة يقف وراء يقف مع درجة ولا تاج والد كاكور يوارك وارك وكفور المحلي وطوارك على خصوصا كفور يصور الناس تطوي منازل شو اللي تجي وحويا أدري أي تدرو كرفت بريه مرحا خيركم من تعلم القرآن وعلمه يا رسول صلوات الله والسلام عليه وحويا فضل بلنه ماركسا بيامين ليسا وحكسو كوبي لها شيخ حسين رنتي شهادة الأسوسية وشهادة علي وآل صريصة أنا وحنوغاي إنه كسر ريا شيخ حسين القاسي عرف كيسو يعني توسنيديسا لو دوغيهي أو معلمين بدن كتوسيهي waxaa la ogyahay maanta dadku aqoonta way baran karaan laakiin siday u gudbiyaan lafteedu waa in aad u ah sida looga fahmay looga faa'iideystay qofka dadka qaarkood baa cilmigoodu barakaysan yahay oo qofkay alifka u bilaabaan oo carabkiisu toosa oo cilmiga barta Sheekh Xuseen toosnida luqadiisa iyo qiraa'ada iyo tajwiidkiisu tusayay waxa u dheer yani barakada kale qofkii arday u noqda وعرفيسو توصي أو كفاية سنة عرفتها يعني وحويا وحقول على الشيخ ولا يمسيه بركة عليه وعن شيخ حسين كنت بالي منها وراكي يعني أرطى مرة ولا إله سبحانه وتعالى آخرين واحد يقول لك إن الشيخ شرفتها الفيدة وحلقة القرآن تسوي سكوك عليه تكسر رئيسا إن شاء الله تعالى آخرنا صدق يسكت فضلي لو بسود دويه وشرف كوي نكوك عليه إن شاء الله تعالى إنك لو هذه إنه مال إلهي نما مريه ونو شفاعة قابو إلى سلط وقوة سواء أصحاب طيبية سلحية وحاجة كانوا إلى إن شاء الله تعالى وحسي شيخ حسوسي لها قرآن كي شهادة ما تلوسوسي شيخ حسين ومسؤولية وين أيه رنتي مصارع سانو صلانو أخي كما قال لي إنك تجرو رضا دنيتها وأنا يبلعبين بالتربة إن أيدي كل دونان أقوال تيا وحبرشة iyo soo noolaynta dadka magaca leh ee waxtarka leh ee markaas gobolka iyo degmada iyo caalamka iyo wadanka wax u qabanaya
soo noolayntooda iyo garab joogidooda iyo maaragta taageeridooda iyo tashjiicintooda inay wax badan ka qaban doonaan waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala mustaqbalka dhow in aynu sheekh xuseen nuur qalile waxaan maanta xaggan u fadhinaa munaasabadan markasta waan ku celinayaa maadaama uu yahay qofkii loola sugayay ama maxaan ku idhaahaa loo fadhiyay munaasabadiisa sheekh xuseen nuur qalile iminkana waxaan kusoo dhaweynaa hadduu ilaahay idhaaho mas-uul ka tirsan mas-uuliyiinta dugsiyada sare magaaladeena dugsigaas oo ah alaqsa cabdiraxmaan daahir cali falyatafadal mashkuura quruxda badan ee ay fadhiyaan wujuuhdan quruxda badan ee ifaysaay waxaa kaloo lagu mahadnaqaynaa ilaahay subxaanahu watacaala xafladan caawa ay usoo diyaariyeen ama ay ku maamuseen ururka cilmiga iyo caqliga dhalinyarada ka tirsan ay ku maamuseen sheekheena weyn sheekh xuseen nuur qalile oo kolley yar iyo weynba macallin inoo wadaa qof aan boorama jooga oo aanu macallin u ahay ma jiro qof walba waa macallinkiisi ama ilmihiisu u yahay ama isagu u yahay ama maaragtay qaraabadiisu u yahay markaa waa sheekheennii dhammaanteed runtii sheekh xuseen annagu taariikhda in badan baanu soo wada qaadanay ninaan isku cusubnahayna maaha waa sheekii alifka noo qabtay weeyaan aada iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa qofka kuu toosiya qur-aanka ayaa ugu xaq badan oo kaaga xaq badan macallinka kale marka aada iyo aad ayaan gaar ahaan sheekh xuseen aan ugu hambaryeynayaa darajada u gaaray waana mid uu mutaystay mid uu iska yeelyeelaya maaha ciddii xukunkaa gaadhayna xukun saxa ayay gaadheen waana ugu mahad celinaynaa waxaana leenahay martabada ilaahay adduunyada kugu gaadhsiiyey aakhirana ha kugu gaadhsiiyo sidaa sheekh cilmiga igu horreeyay u sheegay kuwa darajadaada kugula maaragtay rafiiqa jannadana allah inaga yeelo dhammaanteed marka labaad sidaa sheekh cilmi waxaan leeyahay reer boorama maaragtay martabada sheekha ugu mahad celinayaa maadaama ay martisharafti inoo wada joogto madhowna uu gudoomiyaheenii degmada boorama uu inoo yimid waxaan jeclay inuu isagu inoo furo laakiin qaar buu xagga shirka kuleen lahaa hadduu ilaahay dhaho waxaan aada ugu mahad celinayaa sabeebaan xasan xadiid oo nala garab jooga heliyaho xildhibaanadiisuna aada baan ugu mahad celinayaa maadaama ay laberadii aan hadduu ilaahaa garbahayga taagan yihiin oo yihiin baalalkii aan ku duuleynay noo horseedayna na dheerii geliyena inaan boorana aan ka furno hadduu ilaahay dhaho dhabarka la bereerin oo wax lagu akriso xagga sida maxaan ku dhahaa loo fadhiisto maqaaxiya shaah looga cabo si looga cabo buugga akrintiisa oon ka dhigano sidaan cuntada cunayno ama maxaan ku dhahaa aan wax u akrisanayno si aan uga dhigno aan u bedelno shaaheyni iyo hoteelada iyo meelaha bilaa macniga aan ka berbedino hadduu ilaahay dhaho si aan uga raysano maadaama waxaan kusoo dhaweynayaa boorama bilicsan waayo yaana tugeysi waxa weeyaan guddoomiyaha degmada boorama sareebaan xasan xadi iyo xildhibaanadiisaba aad baan ugu mahadcelinayaa maaya kusoo dhawow waan doonaynaa ka salaamo sheekh haynoo soo warweye karaamada sheekh xuseen waxaan leeyahay marka hore assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulley maanta xaafidad la isugu yimaado waa tii ugu qiimo badan runtii maalintii dhawada la soo dhaweynayay horteed anugu intaan sii maqla horta guushan au gaadhay waa mid xagga ilaahay laga bixiyey facebooka ayaan ku arkay anugu mid baan u qaato sida isaguba u qaadanka waayey guusha au gaadhay anu waxaan u qaatay qof sawirkiisa u jeclaaday inuu soo dhigtay meesha meelo badan baan dib usii galgalay waan baaray waxaan ogaaday inay waxaan wax ka jiraan yar reer boorama oo la yidhaahdo cabdikarin ayaa i sheegay wuxuu yidhi arrintaasi way jirtaa horta waa darajo la bixiyo oo ilaahay bixiya tii ugu sarraysa wey waa mid aakhiriya adduun anfacaysa wey maalintii aan arrintaa maqlay soo dhaweyntiisa bilowga waxaan idhi balad maadaama guddoomiya degmada taad uga horreysay dadkoo hargeysa aad tagtay
meel alla meel aan ka galo anigii baa la xaqiyey waxay halka ku afranaysaa degmadaadii yarada laga yaqaanay bal halkii aad ku sugtay runtii arrin lala yaabay bay ahayd qaabkii loo soo dhaweeyey iyo sida ay wax u dhaceen waxay ahayd karaamay ahayd runtii waxayna ahayd markii hore madax odhan jireen madrasada sheekh xuseen xalano baa lagu tilmaami jiray laakiin maalintii waxaa muuqata halkan masaajidka aluda markaan kusoo dhaweynay salaadiinta loogu kala badisay waxaan saamaha celi garan mayso salaadiintii baa isku qabsaday anuu waxay dhigay anaa la joogi jiray anigaa jaar la ahaa intaasay baasha de markii dambe murtidii baa ka dambaysa waxaan niri sidaa loogu kala badinaya aqoonta sheekh xuseen dhismihii madrasadan ha loogu kala badiyo tiina badantaas baa lagu qaaday innaga maxaa inooga rabaa marka horta ilaahay ha ka reebo raag wanaagsan oo sidiisa ah waxaan jecelnahay in aynu noqono waxa laga yaabaa maanta looda masaajidka markaan joognay dhammaan inta may joogtay markaan saa u eegay madasha waxaa joogay dad aanan xagga siyaasadda ku fiicnayn waa ahludiinkii baa ahayd dadkii ahludiinkii baa joogay meesha oo isku yimi waxay ahayd meel loo kala badinaya khayrka iyo guusha soo hooye sheekh xuseen awalboodamu baynu ka naqaanay iyo beelahan anuu beri sheekhu dhowr jeer safraya galgalo ilaa gadal u tegay waxaan odhan jiray malaha wuxuu mu doonaya inaan hawsha siyar balaariyeen sal aw ku fadhiistaa may jirin runtii maynaan qiimeynin shaksi buu ahaa ina dhex socda dadka inta aqoon waliga waa iska yareed haddii la arkana waxaa loo arkan sheekh xuseen madrasa dhigo oo ina dhex socda waxaa la soo dhaweynaya ilaa hargeysa ilaa madaxweyne ku-xige reer boorama halkaa u joogsada waxay ahayd mansabka au inoo soo hooyey oo aan ahayn mid boorama ku koobane somaliland iyo ummadda islaamka oo dhan caalamka o dhan maanta sheekh xuseen laga garanayaa sawirkiisa meel kasta ku dhegan yihiin isaga naftiisaas leeyaha markii loo yeedhayay sawirkiisa shaashada ka soo baxay waxaa la yaabay runta meesha aynu filayno carabtii iyo lagu dhanaa in sheekhaa uguba malaha lafaayadada markii meesha la isugu yimi in laga soo dhex saaray horta loo qaadan waayo laga yaaba laakiin waxa weeyaan wax gacanta ilaahay ku jira cidina kala masuul mayso waxaan leenahay sheekh xuseen aada iyo aad baad u barakaysan tahay guul baad noo soo hoysay ilaahay darajada aad keentay ha kugu qaweeyo in kale oo sidaadana ilaahay ha ka soo saaro midhaha aad soo saartaa ka aynaan ka dhigo waxaana jecelnahay hadduu ilaahay idhaahdo waar aynu sidii sudan sareebaan sheegay sidaan doonaba aynu ugu tartanay halkaa sheekh xuseen gaadhi aynu gaadhno ficil ba ha noqoto aynu gaadhno dar ilaahay dasi noqon doontaa weli sudan aynu gaadhno halkaa aanan ku tartanno runtii waa darajo la gaadhtii ugu wanaagsaneed waxa iyaduna maanta in la xusaa runtii dhalinyantan caawa xafladda soo qabanqaabisay oo ah miitingkii labaad ee ay qabtaan anoo ka howlgalo waxaana qurux badan dadka noocaasa in la dhiirigeliyo oo wixii aynu la qaban karno inaynu la qabanno anagu golo deegaanaha naga go-anta runtii inaanu wax kasta oo dhalinyartu ay doonayso inay himaladeeda wanaagsan ku gaadho inaanu ka qayb qaadano oonu dhiirigelino oonu wax la qabano waxaanan dardaaran idinka tegaya ha la badiyo barashada luqadda carabiga waayo waa furihii barashada luqadda carabiga ha la barto ha la badiyo madrasadaha la xoojiyo kullay madrasada sheekh xuseen iyadoo imika way ka baxday halkaynu ka filaynay way ka baxday kuwa kalan ka hadlaya tan iyada waa mudaynu isla qaadano standardkii way dhaafsay waana loo kala badinayaa runtii kullay dadkii saaxiibo caqliga shalay oo kala jiidanayay annaga dhammayn kor hau qaadina hargeysayaan loo diran qaalaanyaan la ururin waxaasa lagu hadaaqayay waa iska geesgoanteedu laakiin kuwa daba socda ayaan jecelahay inaynu iyagana halkaa soo gaarsiino la yidhaahdo madrasadii kasoo dababaxay kuwii sheekh xuseen hadduu ilaha idhaahdo wiilaliya gabdhaba diintu waa mid inoo siman ma aha in la kala xigsado gabdhaha laftigooda waxaa loo baahan yahay mustaqbalka in gabadh dariiqaa sheekh xuseen noo jeexay marta inaynu helno oo la yidhaahdo waa madrasadii sheekh iblaayo ay samaysay hadduu ilaha idhaahdo aada iyo aad baad umahadsantihiin waxaana jecelahay naadigana in la dhiirigeliyo anagu kullay badan hore waan qaadno jawaabayduna aday xigsigen bal kullay dowladda hoose iska hawl badane taana anagu roobkayga waana buuxin doona insha allahu hadal waan jeclaa inaan madasha khayrka badan in badana joogo laakiin hawl badan oo isugaysa awgeed waxaan ku codsan lahaa markasharta isugu jirta cidaan kusoo dhaweynayaba inay waktiga noo dhowraan haddii la idhaahdo
maadaama hadduu ilahay caawa tahay loo diyaar garoobayo si aan hore iskaga seexana hadduu ilahay dhaho waan soo way noo soo kokoobayaan waxaan imika ku xigsiin lahaa macalin marna sheekh wuxuu iga reeb laakiin maxamed bile maxamed baan maxaan ku idhahaa aan aad ugu soo dhaweyn محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا أهلا وسهلا بالذين نحبه ونودهم في الله بالآلاء. أهلا بقوم صالحين ذوي التقى قر الوجوه وزين كل الملائك. جزا الله هذا الشيخ أحسن الجزاء في الدارين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال إن الله لا يرفع هذا القرآن كلاما أقواما ويضع به آخرين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبي الله محمد وحديث عليه إلهي قرآن كأمتنا علكم بقية وحميسان اليوم الشيخ حسين أكرم الله أهل الدارين. إذا أكرم الرحمن عبدا بعزته فلن يقدر المخلوق يوما يهينه. ومن كان مولاه العزيز أهانه فلا أحد بالعز يوما يعينه. إله الرحمن هتو إنسان كرامي فلا أحد بالعز يوما يهينه. قف بلأنه يعني سنكراي قف كمجو مركا أكرمه الله هذا الشيخ إلهي وأم مصير شرف بيوتها أفريقية بأكملها. شرف بيوتها الإسلامية بأكملها. واحد إفريقي صومالي إنه شهادة عالمية سوهيو والله شرف لنا. تبكي والله بالله تبكي والله شرف بينوتها الشيخ. ما هذا الكريس مركا عليك مركا عليك يا حسين أدعي ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي ثوبيه أسد أسير. مركو هذا وحويان ما يكلها شيخ حسين والسدا وجد جرير مركو شاشة كسب بحيل السيء شهادي حكيم كسر. ترى الرجل النحيف فتزدريه نندري وحلقي يساوي ويدا أو قابا أو اسكن ويدا وفي ثوبيه أسد أسير لكن بالمريسة لبحبة كسر تحلبه كده هو الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم والحبة سيئة. هو الكلام الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. كلامك إلهي وحنباري مكس إلهي فوق 7 سماوات كدورتي مكس في داخل الأرض كدورتي. وحلينا هي إلهي كعزيز إلهي كعزيز. أسعد الله أيامك وغفر ذنبك ورزقك حياة أهل الإيمان ووهبك دوام النعمة وشمول الرحمة وسعة العيش وتمام العافية وذرية طيبة. وحلينا هاي إخواني شيخ حسين من منتج هاي منهضة إلهي عزقا وقليي دينكو كجرا. إلهي عزقا وقليي الشريعة الإسلامية كجرا. إلهي صومالية سوماليان بورموية كلها تحبك وتقف جنبك. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سينيا قربية كتور جرني وكنديين كتوبي تلصم من دقمة بورمة صمتر عبد القني عبد الله حسن. يا جماعة تشرفت صوبي بشيء كل كنا بلارنا كل سنة كل إنه شيخنا قاليا شيخ حسين نور قالنا واحد كل كسر شيء ما يكون الوقت يا نوير وحقيقة أمر الله يكسر شيء كل تروح غير شيخين إن بدل من نقول إحنا لا إن بدل من نكون عندنا سنين ما تسلك حاجة على يدوي تاسي واحد توصل مركز كذا نص عالم الإسلامي أولاً أيها الغفصية معها نبورنا سومالي معها عالم الإسلام كلهم مع الغفصية وكان إن شاء الله وحنا إلى فاصل وإلهنا كل جارو إنك أنا أنتوا هنا بريء أنتوا معنا كإنها وإلى إلهنا وحول هذه أعطيانيو دنيرتني هلال كايسي مركا يا إنك أنا أنتظرنا هو يدين هو يوينكن
hooyo caalam waxaan kusoo dhaweynaa basra jiride cabdi hooyo kusoo dhawow fadhiyato oo runtii aan u baahnay inaad ka sii sheego waxyaabaha caawa halka loo joogo oo caalamka oo dhan laga ogyahay kollay hooyadu had iyo jeer waxay u taagan tahay inay wax xanaanato sheekha waxaan leeyahay ilaahay baa ku karaameeyey waxaanan ilaahay kaaga baryaynaa karaamadaa uu siiyey tu ka sii weyn inuu ilaahay kuu siyaadiyo insha allahu raxmaan canaanta goormana waxaan odhanayaa aniga oo ku hadlaya magaca ururka tawfiiq iyo magaca ururka nuuril islaam sheekha intaynaan sidan u ogaanin aynaan u soo dhaweynin ayaa ilaahay wuxuuna waafajiyey kulliyadiisa 7 sano qabyada ah inaan 2 goor ka samayno shir jaraa'id oo aan nidhaahno ilaahay dartii ardaydiisii iyo ummadda ku nool magaalada Boorama iyo inta quraanka ilaahay oo jecel oo meel walba ku nool in ay kulliyada sheekha dhameeyaan waxaa nasiib darro ah inaanay 2 qolo oo 2 kumbani oo magaalada ka shaqeeya ay $300 nagu deeqeen laakiin ummadda inteeda badan aanay ka soo jawaabin marka haddii idinku markaa diideen idinkoo Boorama waxaan maleeyaa miidiyada internetka gashaana way aragtay inkastoo dadku wada arkaynin inta TV-ga daawataana way aragtay dibadda iyo gudaba waa laga soo weydiiyey madrasadda haddana wax laga soo qabtay ma jiro maadaama dhammaan laga dhaga adeegay ilaahay xaggiisay ka timiday ilaahay kor u qaada sheekha isagoo awalba korreeyey haddana maanta ilaahay inuu karaamo dheeraada siiyo oo caalam alislaami oo dhan uu ka noqdo axsan almucallim oo luqa oo quraan alkariim ah marka waxaan u malaynayaa haddaynu kaba tagno dadka lacagta iyo dadka baaxmishtarka ah dhalinyartiina maanta qabatay xafladda ee ku faraxsan inaad sheekha soo dhaweysaan ama runtii aynu ku faano marka xaqiiqada laga hadlo gebigan waxay naga tahay maanta sheekha waxaan shalayna uga hortagnay aynu kala bayn u gaadhnay dhammaanteen caawana aynu halkan u joognaa dhalinyar haddaad tihiin waxa weeyaan inaynu ku faano sheekha waayo shalayba uu inagu dhex noolaa cid ogay way yaray ilaa ardaydiisa mooyaane qiimaha uu joogo laakiin maanta ilaahay baa inoo muujiyey maadaama ay sidaa tahay maantadan anagu shir jaraa'idoo 2 baan ka qabanay kulliyada horteeda anagoo 2 urura waxaan leenahay dhalinyarta Boorama ku nool oo dhan by $1 haddaynu bixino waxaan u malaynayaa intaa maanta diyaarka inaynu nahay inuu sheekhu quraanka ku dhigo mooyaane intaa in leer baan dul dhigi karnaa waa only $1 by shakhsi rag iyo dumarba waxaan ilaahay ka rajaynayaa sidaas sheekha shalay aan uga wada hortagnay inaan u kala badino sidii horeba loo sheegay in kulliyadiisa la sameeyo kollayba hooya canaanbi u joogtaa wadiyaha hooyadii u weyneedee Boorama quraanka xafida haddii ilaahay yidhaahdo dhammaanba culimadii iyo ardayda waxaan ka baryayaa inay igu duceeyaan anigana in ilaahay quraanka iga fududeeyo sheekha caalamkiisa ka xafido wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام نور الإسلام أهلا جمال يوسف فليتفضل مشكورا شيء kala qaadeen inuu yahay marka waxa weeyaan macallinkeenu qaarigeenu sheekheenu sheekh xuseen qalle xafidahullah waxaa runtii u mahadnaqayaa macallinkaygii cabdilatiif oo markaa joogo labiyadwajir igu keenay ayaan isagana runtii u mahadnaqayaa sharaf gaar ay tahay isagoo markaa caawa jooga runtii hooye basraa ka hadashay jumciyadda nuur islaam iyo ururka tawfiiq labadaas uma aniguna 2 kelmadood oo kooban aan ka odhan doonaa anigoo marka loo mahadnaq guulaystay inuu furo ilaacatul qur'aan isagana waxaan leenahay waa in la duubo cajaladaha marka waxa weeyaan qaariga kadibna laga soo daayo waxa weeyaan ilaacatul qur'aan waxaan salaam u dirayaa oo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo waxay ugu guulaystay inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliyeed ee ugu horeeya ee af Soomaali ku hadla ee quraanka kariimka gaari ku bixiya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar isagana wuu ku taageeraynaa wasiirkana waan la hadlo waxaan ku wasiir waxaad ka gaarsiisaa baada quraanka kariimka madaxweynaha inay salaamayaan maalinku gobolka awdal yimaadana si gaar ah loo kulmi doonaa tilaaraha maxad marka weeyaan anadaada kuliyada quraanka ee namusaaqidi waxay 7 sano qabyada macallimiin baa magaalada ku nool ganacsatada magaalada ku nool waalid baa magaalada ku nool dawlad baa magaalada ku nool cidda oo dawladda ma jirto laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala farid degdeg cabdi yuusuf oo madax ka ah maxadka faafinta diinta islaamka ee koonfur afrika meel dheer buu joogay markaa
reer geysanahay laakiin macadkaas South Africa ayaa ka wakiilahay oo aan halkan mar baan halkan ku qabtay seminar halkan kan malaha ilaahay aniga maanta ku ila soo doontay sheekha barakaysan inaan meesha ku kulano wax kaliba la iima wadin Nairobi anigoo jooga ayaa la soo hadlay mashaariic halkan joogta markaasaan waxaan imanayaa Boorame waxaana laysoo faray inaan soo qabto bal Somaliland sida ay Ramadaanta muxuu ahaa u cibaadaysanayso intaasaan u soconay ninka sawirka qaadaya iyo sheekh kale ila socday markaa galabtaa baa soo galay ilaahay sheekhan uu ila kulmiyey barakaysan adduunka oo dhan u duceeyey barakaysan ana ninka ducaysa markaa barakadaas uba ilaahay ii keenay Boorame maaha markii igu horreysay 1955 ayaa halkan shaqa ka bilaabay anoo ingiriiska u shaqeeyay وأني يجي فوقات وأنا نقشر يوم باوي لا تاي وحمر كان كله هذا البراوي لحد المرودي وقلت بيه وتكين أكون ولا لحد المرودي هل كاساني اللي أنت بكره كوكاي عذر ما كاي عذر كان لو ده كلي تري وتبكره بلون ترى ما عليك أتون كلي قد بيه يا إلهي كنا لكم المرة كنا لكم فيه waxaan hadda rag baan u sheegay markaan afuray waan wada afuray nafru soo adduunka wuxuu weynaaday 500 kiilo ayuu sidaa u qaaday markaasaa la yidhi maxaad imka noqon doontaa walla naagteedu way ictiraafaysaa sidii wax kale looga eegayo walla carabi maanta ay ictiraafaysaa waxaan hooyaan soo marnay dhankii dumarka Soomaaliya in kaliya lagu xigay waxa lagu xigaysaa gudoomiye ku-xigeenka naadiga bandhiga cilmiga aqriga saaxda فليتفضل مشكورا إنه يوم لا ينفع المال ولا البنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقل الله اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن آخر مسيرتك آية تقراها إليه وكرتين تقبل الله طاعتك ومنك للدولة وعيد ولله ألبدكم هزمتين كلام مهم كل شيء هون تهنيدين يوم بليهنيا أنا شرفت بيعيد وأنا اسمه كل نور ويكلم الناس وأنا كلنا فرحة أصيلة صار عنو يعني وقدري وحياة مهم كان مركز طبيعي كبرى الرجال جاء لهاي الشيخ حسين أردي وحبري طبعا أمانت ويربط هاي لكن إن حقائق الشيء والله تعريفي وضبط الله الشيء بمشو مناسبة هاي الشيخ حسين منهجيل وحبي جاي أيام مهمة إن أجنوم الأسد حيابها مهم كان كل العلمية وحكملها waxay ahayd usluub aan cunfi ku jirin aniga waxaan khayrnaas iyo xasan ciise ayaa geeyay madrasada oo journalist iyo kulli bahda meeliyo in badan bay si garanayaan xasan ciise waxyaabaha muhiimka waxaan sawirka maskaxdayda ku jiray wuxuu ahaa macallimiintii wax garaaci jirtay khayrnaas iyo quraanka dadka bay jirtay iyadoo jaamacad barayfada ahayd jaamacadda ulum wa technology oo $5,000 ilaa $6,000 la bixinayay markaan Norway tagay oo la sheegay dadka waxaan ku yiri masaajid baa ka khudbaday leeyahay yiri waxaan ka dhignay baa leeyahay yiri khatiib imika kulli caasimada labaad cidii uu calaaqo la garanaysaa ayaan soo yar firxanoon imika nibadnay xagga soo oranay ugu dambeyn Djibouti waan tagnay kulli Djiboutina kulli salaamo una nagu soo xaflada فليتفضل مشكورا مأجورا. الله وبركاته. مرة واحد سلام يا أبو الملا قيمة على تسويت مدينكنا إيو قراء إيو مارتي مفسرين إيو نحاد إيو مارتي مشيوخ إيو رباهودا إنت كلا مارتي وحويا ملاحظة إيو تلك غربة مارتي السفر مارتي كويلي يا دمان إنت كسو حاضرتي مجمع سو حاضرتي وكلمة شكر وي مركوها رسول إلهي سبحانه وتعالى كما هذه إن وافجي ما إيمانك إسلام كنا وافجي إلهي سبحانه وتعالى نعمك سواوين أو نسينا إكملتها كتابك إلهي إن نقلنا ضدك ونسبة سرية نقلنا إلهي سبحانه وتعالى كما هذه
marka kalena maaragtay waxa weeyaan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shabaabka quruxda badan leh ee soo abaabulay xafladda lagu qiimeeyo qur-aanka iyo maaragtay waxa weeyaan jacaylka ay jecel yihiin qur-aanka iyo ahligiisaba ay jecel yihiin ay xafladda usoo abaabuleen ay ku tashiicinayaan qaybkooda ku tashiicinayaan ilaahayna ka abaalmariyo dhalinyartaas ilaahayna diinta maaragtay waxa weeyaan kuwa u gargaaray diinta maaragtay ilaahay ugu nusreeyey allah ka yeelo waxaan aada iyo aada yani ugu faraxsanahay maamuusta iyo magaca ilaahay maaragtay waxa weeyaan aw la igu duceynaya aad baan ugu faraxsanahay laakiin waxaan ugu farxad badanahay oon aada ugu faraxsanahay ducada ummaddu ay duceynayso waxaa la wixii magaca maqale ama maaragtay au gaaro dhawaqa uu gaaray maanta haadifka meel walba maaragtay waxa weeyaan caalamka oo mandiqada waaxida au noqday ilaa la intii maqashay maarata ay duceynayso ducadaasaa maarata waxaa yaabaha igu farxad badani ducadaasaa maarata aan islaahay bilaayo ilaahay subxaana watacaala dariiqa kugu iftiimiya oo dariiqa maarata waxa weyan aw kugu nuuraan aw kugu maarata waxa weyan aakhira meel wanaagsan ku heshaa halkaad moodeysaan isaad moodeysaanna maarata waxa weeyaan loo wada yihiin maarata waxa weeyaan rabbana laa tu'aakhidna bima yaquuluun wajcalna fawqa ma yadunnuun وجزاكم الله خيرا كل ما وحويان وقت ضلويا وحن آدي أن أقول إنهم هالنقيا